suukan keenaya mahad leh annagoo maanta soo saaranay xaruntan oo ku jiraan dad fara badan horeyna aan soo siyaaranay markii labaadna ay tahay aan soo siyaarano oo maanta aan u sidno waxooga xaqal ciida si aan uga farxino caruurteena yaryar si aan uga farxino oo ay ula ciidaan dadkooda ay ula ciidaan xaruntan oo xarun aad u ballaaran dad fara badan ku jiro in yar baan nasiib u heshay inaan hadalad maanta aan ciidsiino waxaan leenahay waa agoon waa danyar waa hadalad dad waxa isugu jiraan dad fara badan ay isugu jiraan waxa aan leenahay jimciyada raxma iyadoo meelo badan ka soo qabatay wax badan ka soo qabatay bishoo dhan aan soo shaqeynay ilaahay bishii Ramadaan oo maanta gabagaba ah oo laga yaabo inay maanta inaga harsan tahay maalin ama laba cisho ka harsan tahay waxaan leenahay ilaahay si qaad ilaahayna gaarsiiyay bishan ilaahay khayr inagu dhameeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa si qaad raxmad tacaawunka aynu wadno dadkeena danyarta u gargaarayno masaakiinta ummadina u gargaarayno ilaahay hayna gaarsiiyo ilaahay hanaga aqbalo amalka saalixina wadno ilaahay naga aqbalo khalisna ilaahay inooga dhigo xaruntan oo maanta aan kulay ilaa dhowr iyo 45 caruur aan dil ku ciidsiinayno waxa aan leenahay dadkani waxay aad ugu baahan yihiin in dhinac walba laga caawiyo waayo waxa weeyaan xarun lagu hayo caruurta hadda la eedmaayo xiskooda hadda la eedmo xidhiman yihiin marka waxaan leenahay oon baaq u jeedna dadkan dhamaan leenahay walaal laga soo qayb galo ciidooda iyo cuntadooda iyo dawadooda iyo qayb dhinac walba marka laga eego aad laga soo qayb galo qaybta aan maanta u keenay dharka yaryar maanta aan soo iibinay aan carruurta soo iibinay waxaan leenahay dadkooda carruurta la farxaan waa maalin farxadeed waa maalin ciideed waa maalin u baahan dadkoo dhan wada farxaan oo wada ciidaan marka waxaan leenahay ubadkana iyaguna hala ciidaan maanta wax yar baan keenay laakiin insha Allah waan idinka warhayn doonaa wax badan waan keeni doonaa insha Allah bilaa kariim waxaan leenahay fursadu maanta qorata maaha kulay waan noqon doonaa waxaan ugu baaqayaa haday noqoto dawladda Soomaaliland iyo haday noqoto shacabka iyo haday noqoto dibadda iyo gudahaba in wal qaybtan haday leedmay aad wax looga qabto ayaan aad u jecelahay kuna buurnay dadka marka anigoo soo gabagabeynaya waxaan leeyahay walaashay khatra oo maayo muddo dheer soo haysay waxaan leeyahay ilaahay ku xiltiro ummadana waxaan ku leeyahay Saaqaad Raxmaan hawsha haysan idig iyo shaqaaliinimo hawsha haysan gacanta ku haysan ilaahay ku xiltiro waayo dadka gacanta ku haya dadkan waxa weeyaan waa dad hadda la eedmaayo dhibaato qaba marka waxaan leeyahay waan wada ducaynaa dhamaantiin ilaahay khayradan siiyo gacanta ubadka ku haysan iyo hawsha gacanta ku haysan qofku ma aha qofka halkan jooga qof mushahar ka qaadanaya maaha waa qof dhiban weeyaan qofka dadkan dhex gacanta ku haya waayo mushaharkooda hadda la eedmaayo loo eegmaayo laakiin waxaan leenahay dad gacanta ku haya dadka ku haya waa samir badan tihiin waa adkaysi badan tihiin waxaan leeyahay waan idin ducaynaya Allah hadda la eedmaayo gargaaro wixii aan idinku tar karnaa insha Allah waan idinku tar doonaa insha Allah bilaa kariim hadda la waxba ka karan insha Allah bilaa kariim jimciyada raxma waxaad leedahay wada soo dhaweynaysaa waxaad leedahay insha Allah wixii aan wada qaban karnaa waan wada qabaynaa inaga iyo jimciyada idinka iyo jimciyada raxma waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xaruntan khatra Umar ayaan ku soo dhaweynaa wax leeyahay waftan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina mawlana muhammad Allah rahmaanka ayay mahadoo dhamay u sugnaatay ilaahay baynu mahad celinaynaa inagu sameeyayno dhamaysanaa Ramadaantii ajarka faraha badan lahayd aynu la qaybsanay islaam far badan oo ku kala filqsan daafaha dunida ilaahay khayrkeeda hayna siiyaan leenahay cibaadadana Allah inaga aqbalo iyo amalkeenu soo sameeynay hay'adan al-rahma waa markii labaad ee ay soo xasuusato amba soo xusto Ramadaanta dhexdeeda markii ka horeysay wada arkayseen kulli midiyaha ka daawatan waxay u keentay raashin ay aad ugu baahnayeen caruurtu runtii maantana waxay u keeneen dharkii iida oo ay doonayaan inay inta caruurta dhowr iyo 40 ka maanta in ma wada gaari karaan caruurta halkan lagu hayaana ma aha dhowr iyo 40 iyo 100 ay ka badan yihiin boqolaal weeyaan laakiin maadaama waqtiguna soo koobnaa qorshayaashuna iska fara badnaayeen maanta jamciyadan al-rahma waxay runtii maxay haytay ku soo dadaashay in dhowr iyo 40 caruura oo ka tirsan xaruntan baahiyaha gaarka ay ka farxiyaan waxaanu idin leenahay Allah idinka farxiyo ilaahay idinkii agtiisa farxad ayaad ka heli doontaan qofkii qof dhiban amba ilmo yar oo aan waxba haysanin runtii wax taraana ilaahay baa wax taraya marka runtii waxaan idin leeyahay waan idin ducaynayaa uun jisa Allahu khayr baan idin leeyahay tii horeed keentana Allah idinka jizaayay raashinka hayd dharkan maanta aad u keenteena runtii waa abana qoladii u horeysay ee maanta amba tan oo kala caruurtan dhar u keentay waa qofkii ugu horeeyay
dhowr iyo 40 caruura amba qofna ha ahaadee dhar iideed intuu u keeno ka farxiyay runtii taasaaba ah waxaan la ilaabi karin oo ah yaana maxay haytay farxad aad iyo aad u balaaran halkan waxaan u soo yeernay qof walba waalidkiisii baanu nir gacanta soo qabso si markaa ilmaha adaguna ugu qaado oo aad ugu gudoonto wad arkaysan halkan waalidiintii ba fadhida ilmo walba hooyadii ayaa gacanta soo ugu sii wad arkaysan wada hooyooyin weeyeen wada dhiban runtii ilaahay iyagana dhibaatada ha ka qaado baan leeyahay ilaahay caafimaad caruurta ha u siiyo baan leeyahay annagana ilaahay idinkiisa waxaanu leenahay cidii nagala soo qayb gasha ajarka markaan caruurta dadka wuxuu weydiinana waxaanu nidhahnaa caruurta wax soo siiya ma nidhahnee shaqabdalo waxaanu dhahnaa waar ajar baanu haynaa nala soo gala ajarka nala shaqaysta ajarka xasanaadka nala shaqaystaanu dhahnaa marka waxa weeyaan waxaanu saas u leenahay waxa weeyaan dadka noocaas ah jilicda saan ilxaadkoodii la maxay haytay qaar maskaxdoodii ay leeyihiin runtii qofka wax tara ilaahay iyo xaqiisa ayuu wax laga tara saadarteed baanu mar walba u nidhahnaa dadka haddaan qof mas'uul la hadlaynana waxaan dhahdaa mas'uulnimadaada waxba kuuguma weydiinay waxaan ku leeyahay ilaahay dartii iyo ayaanta aan la gafahayn dadkoo dhan u sii jeedaan dartii waa inaad caruurtan ku soo caawisaa haddii aan qof mas'uul la hadlayo iyo haddii aan qof caadi la hadlayaba runtii waxaan leeyahay miidiyaha qolada miidiyaha aad iyo aad bad u mahadsantihiin mar walba waxaan ka codsadaa qolada miidiyaha in ay runtii barnaamijyo tabaruca oo caruurtan u fidinayaan ee caalamka ugu didayaan in mar walba intay u yimaadaan ka duubaan oo aanay lacag weydiin because lacag ma haystaan namadan duubayo lacag ma haystaan caruurtan yaryar marka runtii cali iyo waxaan aad uga codsanayaa ogeen xaaladaha iyo hawlaha aan ku jirno iyo san anagu ugu tabarucnaa idinkuna qaybta miidiyaha runtii waxaan idin leeyahay jisa Allah khayr inaad ku tabarucdaan oo inta u timaadaan aad fariinta u gudbisaan cid kasta oo naxariista islaamnimada ku dambayso ama caruurtan marka arkaan soona saalaya wax u tara baan idinkan idinka codsanaya aad baan runtii idinku mahad celinaya sida fiican aad noogu timaadeen الرحمة يوم حيتي قدوميه إذا ما حنلاقي هاي كل دعم بان نلاقي واشبتين ما أنت وانو يدين مهد علين النادي أدبان كوج مهد علين الناس إذا نص حسوسة إلا بدأ شربة أشركات كل باش قيسان صوم بينات في الغضاء عدة جالسين كرتاي تاي هبونتين جالسيسو ماشي وجو هبون يدي وجو ناكسنيدنا runtii waad gaarsiisay sababtoo oo dadku had iyo jeer waxay yiraahdaan qofka ilmahaas agoon iyo xaynkaas ay ka hadlaan laakiin agoonkuna waa isaguna waa mas'uuliyadna saaran caruurtanina way leeyihiin qaar rajaaba ku jira qaar agoon ku jira qaar badarada hooyooyinkood laasay halkan nala joogay maxay tiraahdaan horteedii oo dhintay oo imkaan hooyii aabatoon haysan halkan fadhiyo oo dhirkiina ka qayb galay marka kuwaasoo kale wada arkaysaan farxadda maanta ilmo hooyadii dar 3 hore ka laasay ka hor 3 hore laasay oo aan filayninba inuu iyo xataa iska daayaan xataa farxad filaynin oo maanta ka farxiseen runtii ajarka agyaaliyo ahsanaadka iyo waxaad ka helaysaan ilaahay ba qiyaas kareen oo ma qiyaas karno ilaahay wax walba agtiisa ku wanaagsan ku yihiin runtii aad iyo aad baan idin salaamaya waan idin ka gudoonay walaal khayr baan ku soo raacinay adiga cidii kala soo shaqaysay cidii maxay tahay ka caawisay cidii kugu soo tabarucdayba iyo cid kasta oo ka geysatay qayba waxaanu leenahay jazaa Allahu khayr إلهي هيدنك خير سيو طلابنا قريدو سو قادين با ayaa khayr iyo ajara bacd weeyaan oo cadceeda kullu idinku sii raajin ma runtii waanu idinka gudoonay si farxad iyo maxay haytay wanaagsan baanu idinka gudoonay oo ducaana la socoto waanu idin ducaynaynaa waxaanu doonaynaa staad u bilowdeen Allah idinka ha idinku bilaabo staad noogu soo gasheen ha nooga noqonina khayr ha noogu soo galay saas mar walba noogu kaalaya baan idin leenahay cidii kale gaarsiin kartaana gaarsiiya marka aad iyo aad baan idin salaamay dhamaantiin waan idinka gudoon inagu tusaale ahaan